intaan fadhiyay dabkaayar aan tugu dhismaan ka shaqaysanahay muddo laba maalin kadib anaa cisbitaal ku jirnaan soo kacay. Cabdullaahi Cali Maxamed waa mid ka mid ah dhibanayaashii qaraxii 14 Oktoobar sanadkii 2017 ka dhacay magaalada Muqdisho. dilkan wax firay ma gaarin waa gubtay dabkaas bas ay yaxsaanay gacmahaas madaxa bas ay gaarin. Alxamdulillah hadan meeshaan soo laabtay turka la qaaday daawo meesha lagu soo daaway. Dabkii qaraxa ayaa gubay balse sheekada xanuunka leh waa inuu ku waayay qaraxa gabadhii u dhaxday oo garabkiisa ganacsi yar ku lahayd si ay wada jir ugu dabaraan nolosha qoyska. markaan miiriyay ani cisbitaal anoo ku jiro inaan cisbitaal ku jiro filmbooyin ugu socdaan dhaawacay markaan dareemay baawura ku dardaray ama xabad wiirtaa ku dhacay waxa ka tirtiraa qaraxay waxa markiin waa qaylimo turkish ay maalin xaqi meesha joogaya markaan ku yiri xagee joogaa waxa uu qaatay inaan dibtari meelaha cisbitaalada ku xariirsana ilaa mintii turkiga markuu fiiriyay inaan soo kacay markaas uu soo wacday Soomaaliya meesha ku qabtaa dadka ay la hadleen markaas waxay ugu dhacaan xageen joogaa turkiga joogtaa cisbitaal joogtaa waa caafimaad ku malaad alxamdulillah markaas waxay ugu dhacaan baawur ma inta badan xabadna ugu dhacay maxay ugu dhacay meesha qaraxa ka dhacay oo way dadkii oo meesha joogaysayeen wallahi dad badan ku dhintay laakiin waxay karin u fiican yihiin alxamdulillah markaas sidaasaan u ogaaday inuu qarax dhacay markaas kadib la ogaaday markaasaan islaantii aan qabay aaw way dhimata sabri ma Allah kaas noloshiisa saameyn weyn ayuu ku yeeshay qaraxaasi. saameyn weyn u yeeshay meeqa ciyaal badan laga oo looga qaraxaasi ku dhintay alxamdulillah waa fiican markii waxay hore inaan hilmaamo oo shaqadeeda kala sii wado waxay garanaa xaaska halkan bidii halkan fadhiisay aan gudi كم حكاية kaliya ma yahayn inuu ku dhaawacmay qaraxa xaaskiisuna ku dhimatay ee xitaa waxa uu qaraxa ku waayay gabadhii caawinaysay xaaskiisa. gabar kale oo habaryar ay u tahay ayda la dhalatay oo u shaqeynaysa markaas shaqada ku caawinaysa halkii qaraxii musiibada ahaa uu ku haleelay ayuu ku soo noqday si uu ugu maareeyo nolosha carruurtiisa oo cadowga ay hooyo tireen. sababta bil baa laga rabaa ciyaal ugu laga rabaa inta bilowda cisbitaal ku jira guriga kirooyinka aan ku jira laga rabaa marka ma guriga lacag lacagtaas nolosheeda hal mar ka maareyn waa hal mar waxay laga rabaa dadka bixi aday guudaan aysan dhammaan diimaha laga rabo oo inta bilowda ama labada heer la mid hadii joogto qaraxa ku dhintay. Cabdullaahi waxa uu isku dayayaa halmaamida xanuunkii ka soo gaaray qaraxii 14 Oktoobar. والله الحمد لله وتذكرت بدون سامي بدان يوصل ما دان كلي الله وحبان إلا لكن هذي وحوم مدة يلقبان يهين الحمد لله وحول الله إنه كان ماشي إنه معنا مسؤول عبلين ماشي هذا عبلين مسؤول عبلين هذي خصوصا الله مركو واحد دعوة بدعينا الحمد لله وحول الله مركز كدعينا وإله إنه قل وحضور هو يوم كنت من نص وقرأت من وقت قال من الحمد لله مركو ماشي إنه مسؤول عبلين شكلنا والله إني صح تسير أنا ربنا سهل ما حتى سهل اللي صح تسوي تبان كثير ما raadkii dhaawacii ka gaaray qaraxii 14 Oktoobar wali waa uu ka muuqdaa waxaana uu qaataa dawooyin uu kula tacaalayo dhaawacii gaaray. sababta wali ma gudtoon gacmaha meelaha dhaawac ku yaal wali ma waxa soo wali ma reey ilaa hadda dawooyin ay socdo wali bay ka mid tahay qalajyaashan بماتون كان هذا تشغله أنا سوى تبني دوين كان استعماله إلى داخل السعودية عن تجار من ملاك فلسطين تقوم بمسكين سوي عملية الجبت عن ملاك هنا أنا اشتغلت عن الدوائر كنا عم بيشتغل من ملاك waxaan joognaa hoyga Cabdullaahi Cali Maxamed oo mid ka mid ah dhibanayaasha qaraxii 14 Oktoobar sanadkii 2017 ka dhacay magaalada Muqdisho. miiskii aad aragteen oo ku yaala isgoyska Soobo oo halkii qarax uu kula dhacay Cabdullaahi isla markaana uu ku dhaawacmay xaaskiisana ay ku geeriyootay Allah naxariistay ayuu ka maareeyaa nolosha carruurtiisa iyo waliba carruur kale oo ay ka tagtay Allah naxariistay xaaskiisii Faadimo Maxamed Nuur. Cabdullaahi bal nolosha reerka iyo sidii hadda tahay iga waran.
علي وحاسكي لبعض ولكي يهيسو كانوا أحمد قبل دمتي حاسكي دمتي الله ونحرسته عيالك اللي شو ولكي وين وكترسين هاي وحاجوت قبل كلا واسكي يرضي لي حميدو لبض الله سكو عبو عبك لا يوصل شيء الله ونحرسته أنا وحي دشة لوي لو كلا وهوي إذا ما كنت هاي ومركي قدح ودعي أنا بتكوي سوق عليه وهوي من إذا متاعي ونطي وبادي ونطي الحمد لله هذا عيال كنا دوكسي دكتان ودوكسي قرآن ولي سكول مجينين عبد الله iyo xaaskiisii Allah u naxariistay Faadimo Maxamed Nuur nolosha qoyska ayay labada gaar hayeen si ay u hagaajiyaan mustaqbalka ubadkooda balse maanta Abdullahi kaligiis ayuu la tacaalayaa nolosha caruurta waliba miiskan yar oo ah kii uu ku dhaawacmay sanad ka hor oo wixii ka soo baxa nolosha qoyska aan ka fikirin ayuu ku shaqeynayaa isagoo wali la xanuunsanaya dhaawacii sanad ka hor ka gaaray qaraxii 14 Oktoobar hadana meeshii oo wax ka dhacay ayaan fadhiyaa miiskii yaraa oo dadkan ka soo gaaray hadana u sameeyay aasaasan ku sameeyay ayaan gurigan biilkiisa iyo korontidiisa iyo kiradiisa iyo waxaan ku maaraya laakiin ciyaalkana wax barasho u baahan yihiin siiba dugsi quraan ay dhigtaan hadda oo bishii $10 ah oo korontadii bishii $20 oo sakeynayso oo bihii tubadii korontidiisa badana lacag iska rabto taasoo taamiis waxa ka soo baxay ganacsiga yar waxa ka soo baxay ma filna laakiin taasoo tahay waan isku celceliyaa celcelisan ku haya إذا هذه بنادنا تهدي وكفلنا حتى كرداس وراشينكاس وحي عناني دبكوده كفلنا حتى بري بنادنا توا سيح من سكرت يعني هذا أنا من سنوري دبكي سو جاري قرحاس داوعي سو دكسن بوهو يصيب مرحله كتسنه بوهو وين هبينكي ماشي أن سيحبو دحاني يجي دحانكي لا هلا saasay taana suuxi waa ka caawinayna suuqa inkastoo meesha uu ku ganacsanayo ay tahay goobtii ay mashaqadu ku haleeshay haddana Cabdullaahi kamuusan quusan in qoyskiisa uu adeego isagoo oo aan wali ka bogson dhaawacii gaaray Cabdishakuur Ali Axmed warbaahinta qaranka Muqdisho